Assalaamu calaykum. Waxaan xog la yaab leh kaa siin doonaa ninkan oo muddo 41 sano kor u dhaafaysa ku noolaa duurka noloshiisa oo dhan. Kaliya wuxuu la macaamilay aabbihii iyo walaalkiis. Waxa ugu yaab badan ayaa ah in uusan weligiis arkin naag ama qof dumar ah. Aad bay u adag tahay dad noocan ah in laga helo dunida guudkeeda. Macluumaad kooban haddii aan kaa siiyo waxyaabaha uu jecel yahay ninkan, waxay noqon doontaa daqiiqadihii ugu yaabka badnaa ee noloshaada. Ma yaqaan guryaha ama dhismayaasha, ma yaqaan gawaarida iyo kombuyuutarada. Ninka aan ka hadlayo waa Hon Van Lang. Lang markii uu jiray 2 sano waxaa dhintay hooyadiis iyo 2 walaalihiis ah, waxayna ku dhinteen bamkii uu Maraykanku ku garaacay dagaalkii Vietnam. Sidaa awgeed, aabbihiis ayaa u kaxeeyey isaga iyo walaalkiis kaymaha si uu halkaas ugu ammaan helo uguna qariyo. Waxay halkaas ka dhisteen guri ka samaysan alwaaxyo, waxay dhar ka dhigteen diirka dhirta, sidoo kale waxay geedaha ka qorteen agabkii ay wax ku cuni lahaayeen sida malqacad iyo xeero. Waxay noqdeen kuwa soo ugaarsada si ay u noolaadaan. Waxay cabbi jireen biyaha webiga iyo haaraha. Lang wuxuu aad u jeclaa cunto isaga gaar u ah sida maska, daanyeerka iyo raha. Marka dhammaan la isku daro, wuxuu jeclaa inuu cuno madaxa jiirka. Ma u malaynaysaa dhammaan noolayaashan wuxuu cuni jiray isagoon isticmaalin cusbo ama basbaas ama aan karin oo ceerinku ku cuni jiray. Waxay islahaayeen weli dagaalkii wuu socdaa oo ma dhammaan. Aabbihiisna marnaba ma jeclayn inuu dib ugu laabto noloshiisii hore oo wuxuu qabatimay nolosha kaynta. Marka laga reebo diyaaradaha oo ay arki jireen iyada oo dushooda duulaysa, aabbaha Lang marnaba ma uusan barin wiilkiisa inay jidho nolol ka baxsan midda ay hadda ku nool yihiin. Xitaa uma uusan sheegin inay dunidan guudkeeda ay ku nool yihiin dhadig ama dad dumar ah. Wax walba waxay isbedeleen markii maalin maalmaha ka mid ah Lang laga helay kaynta dhexdeeda. Muddo ka badan 40 sano ay ku noolaayeen kaynta, waxaa dib loogu ceshay noloshii adduunka oo ka duwan middii ay ku jireen. Dadka ayaa isku dayay inay baraan inay iyaga ka mid yihiin. Lang ayaa sameeyey gebi ahaanba wax aan laga filayn. Maxay kula tahay inuu sameeyey ninkani? Haddaba kala dooro 4 qodob. Daawade commentigan igu reeb inta aan ka jawaabin su'aashan adiga jawaabtaada. 1. Ma wuxuu doonayaa in kayntii uu ku laabto? 2. Ma wuxuu doonayaa in uu dareewal noqdo? 3. ma wuxuu doonayaa inuu xaas helo ama qof lamaana ah uu dunida tan ka helo? 4. ma wuxuu doonayaa inuu wax barto? Haddaba haddii aan ku siiyo 5 sekin, fadlan nagula wadaag jawaabtaada commentiga. Haddii aan su'aashan ka jawaabno, Lang wuxuu gebi ahaanba go'aansaday inuu dib ugu laabto kaynta. Innagu waxaynu ognahay qiimaha uu leeyahay ku noolaanshaha nolosha heerka sare ah ee taal dunidan, balse Lang waxaas oo dhan ma oga. Isagu kuma qanacsana halkan. Wuxuu haystaa nolol aad u sahlan. Wuxuu haystaa guri uu ku noolaado iyo cunto uu cuno, dhar uu xirto iyo biyo uu cabo. Wax walba uu u baahdo wuxuu ka helayaa kayntaas. Waa midaas waxa isaga siinaysa qanacsanaanta nolosha. Dad badan ayaa islahaa Lang waxaad ka soo saadheen noloshii xadidnayd, balse xaqiiqdu taasi ma tahay. Mise waa nin nasiib badan oo dhinac maray dhibaatooyinka ku hoos qarsoon nolosha dunideena ee casriga ah. Aad baad u mahadsan tahay. Fadlan ku soo dhawow Qardha Post, Flow iyo like na saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.